السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ku sugannahay bartamaha xaafadda Islii waxaan ku weydiin doonaa shacabka Soomaaliyeed su'aalo ku saabsan diini iyo maadi insha Allah nala socda walaal diyaar baad u tasaamaha inaad su'aalaha naga ka jawaabto adigoo ku bilaabaya magacaaga waxa Maxamed Xuseen Cabdi diyaar ah su'aasha koobaad aan ku weydiinayna waxay tahay aabaheen Aadam calayhi salaam waa taqaana meeshii markii jannada laga soo saaray uu uga soo degay adduunka ma noo sheegi midda labaad aan ku weydiinayo waxay tahay xayawaanaadka ugu caqliga badan midda su'aasha saddexaad aan ku weydiinayna waxay tahay xayawaanaadka ugu xasuusta badan geelka diyaar waa sheegtay su'aasha afraad aan ku weydiinayna waxay tahay hooyadeen Xaawo iyo aabaheen Aadam markii la kala geeyay midba meel loo qaaday hooyadeen Xaawo xagee la geeyay adduunka xagee laga geeyay Makka walaal waxaan kugu soo dhaweynaynaa barnaamijka su'aalaha adigoo ku bilaabaya magacaaga andhawahay walaal magacaygu waa Cabdirasaaq Asawid walaal ma sanid su'aasha koobaad aan ku weydiinayno waxay tahay aabaheen Aadam calayhi salaam markii laga soo saaray jannada meeshii laga dajiyay arlada meeshii laga dajiyay samada arka hawada ay su'aasha labaad aan ku weydiinayna waxay tahay oo ku saabsan oo maadi ah xayawaanaadka ugu caqliga badan xayawaanka ugu caqli badan dibaxa waa amalaan su'aasha saddexaad aan ku weydiinayna waxay tahay hooyadeen Xawaa ayadana markii laga soo saaray jannada meeshii laga dajiyay ayadana oo la geeyay shaqraha soo baxay la geeyay ma wadanka la geeyay rabnaa wadanka la geeyay wadanka walaa muxuusta walaa ma sanid bro ma sanid السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله إننا كويدين سؤالها ديار موتاي وعليكم السلام مدعي عبد الرحمن سؤالها ديار موتاي سؤال كوبادان كويدين إنه حياتها أبهن آدم عليه السلام مركي لقصه صاري جنة أو عني جيتك اللي يريها عنين أو الله سبحانه وتعالى كل هاي وعني ولقصه صاري جنة ماشي أدونك لو قصه دجي لك أجوري لكياني فلسطين سؤال labaad ku weydiinayna waxay tahay xayawaanaadka ugu caqliga badan bakayla su'aasha saddexaad aan ku weydiinayna waxay tahay hooyadeen Xaawo markii laga soo saaray jannada meeshii laga soo mataqaanaa ee adduunka looga soo dajiyay ama wadankii laga soo dajiyay markii jannada laga soo saaray Sacuudiga waad sheegtay magaalada ma dari kartaa Makka su'aasha saddexaad aan ku weydiinayo waxay tahay xayawaanaadka ugu xasuusta badan bakayla السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا برنامجكي سؤالها مقعد نشك مركورة صاحب مقعي أسد الله أسد سؤال كوباد أن كويديننا وحيتها هاي نبي آدم عليه السلام أبهن آدم عليه السلام مركي لقصه صار جنة أو جيتك إلهي سبحانه وتعالى كرب يقول عني أرلذ إلهي ماشي لقصه دجي أما وضن كي لكاني وضن كي لقصه دجي والله سؤال ورجل سؤال labaad aan ku weydiinayna waxay tahay xayawaanka ugu caqliga badan xayawaanka ugu caqliga badan حيوان أغلى ما لها النير هاي سؤال الاتحاد waxaad sheegtaa xayawaanka ugu xasuusta badan xasuustiisa foorta waay sidii حسوس دمر حسوس بلي مرمر أسوس كفدي ما نسكت جوا إكستيسو صح حسوسنا أنا كان ما أنا بعدين حواء أيضا مركي جنازة لقى صاري ما لا لقى تجي أيضا آدم ولا كلاجي مركي هذا تسكت ديك أيضا ما يصعب هذا كذا سيقول سؤال لكن إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا شيء نقصد هنا وده كان سؤال ويديني أذيك ومقعد كبلا مقعد نوش جاي أنا مقعد دموي waxaan ku weydiinaynaa su'aasha koowaad waxay noqonaysaa haddaad kala taqaan xayawaanada ugu caqliga badan xayawaanka ugu caqli badana
أو اللي بحياته su-aasha labaad waxaa waaye aabaheen aadam calayhi salaam markii jannada laga soo saaray oo dhulka la keenay meeshii laga keenay dhulka ama wadankii la keenay oo ay malaa'igta geysay ما قرنا يتاس كل شيء ولا هو haye mid saddexaad waxaa waaye xayawaanka ugu xasuusta badan xasuus markii la bini aadamka xasuusta way ku kala badan yihiin Soomaa xayawaanka ugu xasuusta badan حويانك واحد سست بدنا بقولي حويان سوا ونعمة بموت سكون فعلي وحويان له asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaal waxaan kugu soo dhaweynaynaa barnaamijka dhallinyarada ama ku saabsan inaan su'aal weydiinta diyaar ma u tahay haa walaal magacaaga adoo noo sheegayo mawlid calas mawlid aad baa u mahadsan tahay waxaan ku weydiinayaa su-aasha koowaad aan ku weydiinaya waxay tahay nebi aadam calayhi salaam markuu ilaahay jannada ka soo saaray oo uu cunay geedkii wadankii laga soo dejiyey oo ardada uga soo degay maasha allah waa india simfilnay india maasha allah su-aasha koowaad waa sheegtay midda labaad aan ku weydiinaya waxay tahay oo ku saabsan maadiga su-aasha labaad aan ku weydiinaya waxay tahay xayawaanaadka ugu caqliga badan inaad noo sheegto maasha allah haddii aan maskaxdayda ka dhibto waa daanyeer maasha allah su-aasha labaadna waa sheegtay midda saddexaad aan ku weydiinaya waxay tahay hooyadeen xawaa markii ayadana laga soo saaray nebi aadami ayadaba laga soo saaray laba wadan baa la kala geeyey wadankii hooyadeen xawaa la geeyey noo sheeg sacuud carabiya jidda maasha allah waad sheegtay su-aasha u dambaysa ku weydiinaya waxay tahay xayawaanaadka ugu xasuusta badan xayawaanaadka ugu xasuusta badan laba su'aalood laba xab ma ka dhigan karaa saddex option maasha allah libix daanyeer iyo geel maasha allah geelin waad sheegtay allaha ku barakeeyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal waan ku soo dhaweynaynaa barnaamijka su'aalaha mudda koowaad aan ku weydiinayo magacaaga horta noo sheeg magacay yaxya cabdi yaxya cabdi su-aasha koowaad aan ku weydiinayo waxay tahay xayawaanka ugu caqliga badan bakeelaha waa bakeelade xayawaanaadka ugu xasuusta badan haddaad isku dayi karto geel maasha allah baarak allah hooyadeen xawaa markii laga soo bixiyey ayadan laga soo dejiyey samada meeshii laga dejiyey dhulka sacuudi carabiya maasha allah waad sheegtay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaal waxaan kugu soo dhaweynaynaa barnaamijka su'aalaha adigoo ku bilaabaya magacaaga magacaygu waa Fattaax Jastoole magac dheer Jastoole waxaan ku weydiinaynaa su-aasha koowaad waxay noqonaysaa aabaheen aadam calayhi salaam markii laga soo saaray jannada meeshii arlada ama adduunka uga soo degay ee malaa'igta keentay ugu adagtaa haye hooyadeen xawaa ayadana sidoo kale waa la kala geeyey labadooda laba dhul baa la kala geeyey ayadana dhulkii la geeyey maydinka ugu adagtay ugu dhib ma laha isku dayga waa qayb ka mid ah aqoonta midda saddexaad waxaa waaye xayawaanaadka ugu xasuusta badan geel oran lahay geel ayaan oran lahay waad sheegtay midda afraad oo su-aasha afraad waxay noqonaysaa xayawaanka ugu caqliga badan haddii aan isku dayo shabeelka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaal inaan su'aalo ku weydiino diyaar ma u tahay haa dabcan haa su-aasha koowaad aan ku weydiinayna waxay tahay aabaheen aadam calayhi salaam markii laga soo saaray jannada oo uu geedkii cunay oo ilaahay subxaana watacaala ka reebay meeshii ardada looga soo dejiyey waxaa ku qiyaasayaa Djibouti Djibouti Soomaaliya waniyo macnaha waxaa ka wadaa waxaan ku qiyaasayaa wadamaha carabtaniyo ma garanaya aniga taas aan ka gudubna waa sheegi weysay midda labaad aan ku weydiinayo waxay tahay walaal adoo mahadsan xayawaanaadka ugu xasuusta badan xayawaanaadka ugu xasuusta badan oo in badan wax xasuusto waxaan u maleeyaa eyginiyo saddexaad aan ku weydiinayo waxay tahay waxaad noo sheegtaa xayawaanaadka ugu caqliga badan xayawaanaadka ugu caqliga badan eyga waay xayawaanaadka ugu caqliga badan soo dhaweys isku day libax aad iyo aad baa u mahadsan tahay walaasheen soo dhawow bandhowe magacaaga noo sheeg ridwaan su-aasha koowaad aan ku weydiinayna waxay tahay aabaheen aadam calayhi salaam markii jannada laga soo saaray meeshii laga soo dejiyey mid saddexaad aan ku weydiinayna waxay tahay waa maadi xayawaanaadka ugu caqliga badan yaayuur
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا أدقوا مقعد نو شيء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحنكم عديرنا أحمد سؤال إن كويدين ديار موتاي ديارة ما شاء الله سؤال كوبادا كويدين إنه حياتها هاي أبين آدم عليه السلام مركي جنة لقصة صاري أرلذ إلهي ماشوا وقصة دقي أما لقصة دجي ناشك هذا اسكو ده سؤال كستو أي مقنتاي عاش لبعضهم كويدينها وحياتها هاي حيوانات وعقل بدن و كده در ميعس هلا دقة بقالة ماله سنقرة مه هاي سؤال سدحادا كويدينها وحياتها هو يدين حواء أيضا مركي لقصة صاري جنة آدم أبين آدم ولا كلا جي لما ميل بالغو كلا دجي هو يدين حواء ماشي لقد دجي سعودي عربي مه ما شاء الله سؤال أفرادهم كويدينها وحياتها هاي أبين آدم عليه السلام عرّين لقى أبو روان قنا سماه إلهي عروك أبو ري لكن بني آدم ما أهين مفهم قرده محوها مرك بني آدم ما أهين محوها ما شاء الله ويوادك ما شاء الله الله يبارك ديار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لونقصد ويننا وحكويديننا برنامج كسؤالها وسؤال كوبات أما مقع قرطنا وبلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا مقعيقة حسن هيرو إن برنامج كان أدي آدم أوف رحسنا هنا كقيب قلو سؤال والبولي ودين هنا كجاوب ديارنا واه ما شاء الله سؤال كوبادا كويديننا وحياتها هاي أبين آدم عليه السلام مركي لقصة صار جنة أو جيتك إلهي سبحانه وتعالى وكرر أو عني الذي أمر لك لقصة دجي أنا أسكت إذا ناشكت هاي سؤال لبعضهم كويديننا وحياتها هاي هو يدي حواء أيضا مركي جنة لقصة صار ماشي لقد دجي لك أيضا لقصة دجي أيدي آدم ولا كلا جي مركا ماشي لقد دجي سؤال أدقتها حيواني وكجود بينا إن شاء الله سؤال سدحادا كويديننا وسؤال مادي حيوانات كحيوان كأوح حسوس تبضن هداد أو حيوانات وحسوس تبضنا أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا وحن كويديننا برنامج كسؤالها أذيقو ناشي غير مقعيق وصنع أحمد صلاد وحن سؤال كوبادا كويديننا وحين قنيسا أبين آدم عليه السلام ماشي لقصة دجي مركي لقصة صاري جنة أو عني جيتك إلهي سبحانه وتعالى وكل هاي عنين ماشي لقصة دجي الله مستعان لدى نسكت ضيا هنديو ما شاء الله واد شكتي سؤال لبعضهم كويديننا وحياتها أيضا لحرت هو يدين حواء مركي أيضا الجنة لقصة صاري ماشي لقد دجي لبعض ضيوال كلا جي لما ميلو كلا دونا لقد دجي ماشي أيضا لقد دجي ناشك أوكي السود عربي أيضا سعود عربي ما شاء الله ودينته وكفي عنتها الله كبركيه سؤال سدحادا كويديننا وحياتها هاي كصابسن أو مادئة حيوانات كحيوانك أو عقلك بدن ممكن معناها دانيير ما شاء الله وسود يركرودي سؤال أفرادا كويديننا وحياتها هاي نبي آدم عليه السلام بني آدم ما هين محوها هذا دوقو هاي عرّ laga uumay oo dhooqo wahay carra in laga abuuray waa ognahay abuurkiisaas u ahaa laakiin aabahan aadam bani aadam ma ahayn muxuu ayuu ahaa carru wahay haye su'aasha ugu dambaysan ku weydiinayo waxay tahay taas maad garan su'aasha ugu dambaysan ku weydiinayo waxa waaye xayawaanaadka ugu xasuusta badan geela assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaal waan ku soo dhaweynaynaa inaan su'aalo ku weydiino diyaar mu tahay وعليكم السلام ورحمة الله ku dhawa walaal way weydiin kartaa caadi wax magacaaga Cabdullaahi ya saaxib Cabdullaahi Xaj su'aasha koobaad aan ku weydiinayna waxay sheegaysaa xayawaanka ugu caqliga badan noo sheeg xayawaanaadka ilaa uma dhana xayawaanka ugu caqliga badan أنا أحكي بوحي لتها أملنا هدا عن قياسه قصتنا أنا قونين دوعة أملنا دوعة أنا واقل بونتاي أوبشن كلا دوعة هدا إيهن كل بحي دانير كيلته ما شاء الله واشكتي سؤال لبعضهم كويديننا waxay tahay aabahan aadam calayhi salaam markii jannada laga soo saaray oo geedku ilaahay u diiday subhanahu wa ta'ala oo cunay wadankii ama ma taqaana dhulka ilaahay ma taqaana subhanahu wa ta'ala abuuray meeshii looga soo dajiyay noo sheeg nabi aadam calayhi salaam waxa lagu soo dajiyay Makka
waa garan weystaas su'aasha saddexaad aan ku weydiinayna waxay tahay xayawaanka ugu xasuusta badan xayawaanaadka ilaa waxa ugu xasuusta badan xayawaan leh soo ma xayawaanka waxa ugu xasuusta badan ila tahay taas isku daya waxaa u maleynaa inay tahay dawacada camal u maleyn su'aasha afraad u dambaysa ku weydiinayna waxay tahay hooyadeen xawaa markii ayadana abeen aadam laga soo saaray jannada labadood waa la kala geeyey midba waxaa la geeyey wadan marka hooyadeen xawaa wadankii laga soo dejiyey haddaad isku dayi karto Saudi Arabia ما شاء الله واشكتي لبس سؤالنا واشكتي لبس سؤالنا وقلدي الله كبركه ما شاء الله